محمد وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii noo socday cumdat اlaxkaam lilimaam abi muxamed cabdulgani bin cabdulwaaxid almaqdasiy. marka kitaabu dahaar ayaan ku jirnay, waxaan soo gaarnay baabu siwaak. baabu siwaaki cadagii ayuu baab yahay ama rumagii. marka siwaak waa magac loo isticmaalo laanta lagu cadaydo, ficilkana waa la yidhaahdaa. markaad cadayanaydo ficilkana siwaak waa la yidhahdaa. alxadiiثu 17 xadiidka 17 can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaal, wuxuu yihi nabigu, lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii lala yahay calaa ummatii ummadayda la amartuhum waan fari lahaa oo waan amri lahaa bisiwaaki rumaga ama cadaga cinda kuli salaatin salaad kasta agteeda. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, ummadayda haddaanay dhib ku noqon lahayn marka lagu waajib yeelo oo la amro, waan amri lahaa markaa waajib bay ku noqon lahayd inay cadaydaan ama ay rumaydaan salaad kasta markay gelayaan. riwaayad kalena waxay ahayd maca kulli wuduu'in, weesaqaad kasta agtiisa. marka waxaa meesha marka ka muuqda inay tahay sunno adag inay tahay, laakiin aanay waajib aanu ahayn cadagii. salaad kasta agteeda iyo weesaqaadka iyo markaad soo kacdo intaasoo dhan waa loo baahan yahay, waa sunno adag. iyo markii afkaagu isbedelo iyo marka aad aamus ku dheeraato, waqtiyadaasoo dhan waana maaragtay nadaafadda afka weeyaan, oo inaanay ku dhibsan bulshadu wey. marka waxaa ku jira marka meeshaas inuu sunno yahay laakiin aanu waajib ahayn. waxaa kaloo ku jira xugun ah, wax kastoo qur-aanku amro ama sunnuhu amro waa waajib haddii aan la helin wax ka leexiya. lianna hadduu nabigu amri lahaa calayhi salaatu wasalaam uu dhihi lahaa mar walba waa inaa cadayataan salaad kasta agteeda, waajib bay nagu noqon lahay. laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam dhimrintiisa iyo kalgacalka ummaddiisa uu qabo ayuu nooga khafiifiyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. marka waxay yidhaahdaan shaaficiyadu iyagu bacda zawaal qofka sooman looma ogola. qofka sooman maaragtay markii la gaaro duhurka markii la gaaro lama ogola oo waa karaahiyo, waa inuu iska joojiyo weeyaan. laakiin xadiidkan ayaa ka hor imaanaya oo yacni xadiidkani ma qaydin waqti uu u sameeyey iyo waqti uu kasoo reebay ma jiro, waa mar kasta weeye. sidaa darteed qof saa'ima iyo qof aan saa'im ahayn intaba waxaa loo baahan yahay mar walba in cadagaa qofka uu wato. haddii hadda reer magaala la noqdo waxaa laleeyahay waa laga yaaba adag meel qarsoon iyo gurigaaga iyo mooye. markii cadaga laga hadlayana maahan inaad macnaha masaajidkii iyo dadka dhexdooda inaad macnaha wax ku tuftufaysid maahani, yani afkaad ma marinaysaa weeyaan. markaad salaada gelayso aad weyse qaadanayso, marka mar walba maaragtay waa sunno, waana in lagu dadaalo weeye oo la wato cadag. alxadiiثu 17 xadiidka 17 can abi hurayrata waxaa laga wariyey can الnabiy uu ka wariyey nabiga salى الlahu عalayhi wasalam, nabigu qaala inuu yihi nabigu, lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii lala yahay calaa ummatii ummadayda oo aanay dhib ku noqon lahayn, la amartuhum waan fari lahaa waan amri lahaa bisiwaaki cadaga cinda kuli salaatin salaad kasta agteeda weeyaan. marka waxaa loo baahan yahay marka mar walba in cadaga la wato weeyaan. xadiidkaana muslim baa soo saaray, muslim iyo bukhaari. muslim baa soo saaray iyo bukhaarina wuu soo saaray. muslim iyo bukhaari baa soo saaray labadaba. marka cadagu sidaasuu marka u fadli badan. alxadiiثu 18 xadiidka 18 can xudayfata bni yamaan waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi, kaana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam, rasuulkii alla wuxuu ahaa idaa qaama markuu istaago min alleyli habeenkii oo hurdada kasoo tooso weeyaane, yashuusu wou marmarin jiray
faahu afkiisa bisiwaaki caday ama rumay. qaala almualifu ninka kutubka alife wuxuu yihi macnaahu waxaa laga wadaa yaqsilu wuu dhaqi jiray cadaygaasuu ku mayri jiro waydluku wuu marmarin jiray. yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shaasahu wou marmariyey, shuusu wou marmarinaya, wamaasahu wou marmariyey, musu wou marmarinaya idaa qasalahu markuu dhaqo. xudayfa ibnu yamaan waa saxaabi jaliila, waxaa la yidhaha saaxibu siri rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam. aabihii isaguba saxaabay ahaayeen, wuxuu ahaa muhaajir. aabihii waxaa lagu dilay, muslimiinta ayaa si kama u dilay dagaalkii uxud, isaguna wuu sadaqaystay, dhiiggiisii kama qaadano, ma uusan yani diyo kama qaadan muslimiinta, qada ayuu ku dhintay aabihii. waxaana la yidhaahdaa xudayfa ibnu yamaan ibnu jaabir. meeshaas yani markii yani ay dileen ma intuusan dhimanin ku dardaarmo odaga may wiilkiisaana diyadii soo ma waa wiilkiisaan ka hadlayna odag ma. marka xudayfa marka wuxuu ahaa ninka haya sirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam. nabigu u sheegay munaafiqiinta. cumar oo kale wuu ku dukan jiray, ninkuu ku dukado, ninkuu ka harana wuu ka hari jiray, ilaa wuxuu og yahay inuu hayo sirta nabiga calayhi salaatu wasalaam. saaxiibu sir rasuulillahi baa la yidhaahdaa. marka siiradiisu way dheer tahay, laakiin waa iska soo koobeynaa intaasaan kusoo. can xudayfata bni yamaan radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii alla wuxuu ahaa idaa qaama markuu kasoo istaago min alleyli habeenkii hurdada yashuusu wuu marmarin jiray faahu afkiisa bisiwaaki cadaga. qaala almualifu wuxuu yihi macnaha waxaa laga wada yaqsilu dhaqi jiray, weydluku uu maaratay marmarin jiray, wuu ku rugi jiray. yuqaalu waxaa la yidhahdaa shaasahu wuu marmariyey, yashuusu wuu marmarinayaa, wamaasahu wuu marmariyey, yamusu wuu marmarinaya idaa qasalu markuu dhaqo. na luuqad ahaan kuugu fasirayaa weeyaan. marka habeenkii markaad soo toosto iyo maalin waxay ahaato markaad hurdada kasoo toostana iyaduna sidaas oo kale afka waxaa ku jirta xoogaa doorsoon oo isbedela ayuu keenayaa. marka waa inaad marka cadayato, waa lasii adkeeyay iyadana marka waktigaas. marka xudayfa marka waxa weeye wuxuu dhintay 36 hijrada markay ahayd ayuu dhintay radi allahu canhuma. alxadiidu 19 xadiidka 19 can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tiri dakala cabduraxmaan ibnu abi bakr sidiiq ayaa u soo galay cala nabiy nabiga sala allahu calayhi wasalam, wa ana aniguna musnidatuhu mid ku tiirisay ayaan ahay bay tiri ilaa satrii xabadkayga. nabigu waa sakaraad buu ahaa. wamaca cabdiraxmaanna wuxuu sitaa siwaakun caday radbun qoyan oo yastanu uu ku cadayanayo bihi cadaga. fa abadahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam basarahu, wuxuu ku taagay araggiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam, uuna ku dheereeyey, aada buu u eegay. fa akhadtu waan soo qaaday asiwaaka cadagii, faqadimtuhu waan u burburiyey, dayabtuhu waan u hagaajiyey, uma dafactuhu waan u dhiibay ila nabiyi nabiga sala allahu alayhi wasalam. fastana nabigu waa ku cadayday bihi cadagii, famaa ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam, maanan arag bay tiri rasuulka oo istana cadaysaday istinaanan cadaysi axsana minhu ka fiican maalintaas yani cadagaas. famaa caddaa ma gudbin rasuulku an faraqa inuu faaruqay rasuulullahi rasuulkii alle sala allahu alayhi wasalam, isla markii u dhamaystay wey macnihi. rafaca yadahu gacantiisa kor u taagay ow isbacahu ama fartiisa, uma qaala wuxuu yihi fi rafiiqi alaclaa 3 3 jeer ayuu wuxuu yihi allahuma alxiqnii bimacnaa macnaheed waxaa wey allahuma alxiqnii birafiiqi alaclaa allow haleeshii rafiiqa sare. uma qudiya waa la oofsaday caleyhi nabigu waa la qabdo waa dhintay wey macnihi. wa kaanad waxay ahayd caaisha taquulu mid tiraa maata nabigu waa dhintay calayhi salaatu salaam bayna xaaqinatii dhuuntayda iyo wadaaqinatii lafgareedkayga inta ka dhexeeya, ama kalxantayda iyo lafgareedkayga inta ka dhexeeya ku geeriyooday. wa fii lafdi kalena wuxuu ahaa fara-aytuhu waan arkay yandur isagoo eegaya ilayhi cabdiraxmaan, wa caraftu waxaan garta anahu nabigu yuxibu siwaaka cadaga inuu jecel yahay. faqultu waxaan ku idhi aakhuduhu laka ma kuu soo qaadaa? fa ashaara bira'sii madaxiisa ayuu ku ishaaray an nacam yani ma hadli karinoo aad buu u xanuunsanaay.
hada lafd الbخaariي wey wlmslimna naxwu kan oo kale laysa alxadiiثu bhada اlmacnى cinda muslim lakin xadiidka muslim oo weriyey macnuhu halkan waa ka duwan yahay waase isu dhow yihiin weye macnihii cabdiraحman ibn abi bakr caaisha waa kasoo hadalnan umalaynaya bاkhtisaar cabdiraحman ibn abi bakr caaisha la dhashay ku hooyay aaba weeye abi bakr sidiq baa dhalay waa caruurtiisa ninka ugu weyn buu ahaa isagu uu dib dhacay islaamkiisu dagaalkii beder iyo uxudba dhinaca kale kasoo jeeday dhinaca gaalada kasoo jeeday abubakarna dee nabigu la socda alayh salatu salam marka adugu wuxuu islaamay hudnadii ama xabad joojintii sulx xudaybiya waktigaas ayuu islaamay kadibna waa soo hijrooday marka adugu waa staan soo gaabino wuxuu dhintay yaa la yidhaha 53 54 iyo waa la isku khilaafaa adugu waktiga uu dhintay marka meel maka u dhow ku dhintay 6 mayl ama 12 mayl saas oo kale buur jabal xabasha saas oo kale marka saxaabi jaliil waa isaguna marka siiradiisu way dheer tahay laakiin intaas kusoo gaabinayna والحديث التاسع عشر حديث كسقالية طبنات عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت دخل عبد الرحمن أي أصو قال ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي أصو قال صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته أنه كتيري إلى صدري حبت كيغا نبي وحنوسني هاي ومير دبول ميا ركا قار يعني سكرات باهية ومع عبد الرحمن لجيركي سنوحها سواكم عضي ردم قيان لان قيان وي معنيه oo yastanu uu ku cadayanayo bihi laanta faabadahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam basarahu rasuulkii alle ayaa aragiisa ku taagay oo ku dheereeyey fiirinta fa akhadtu siwaaka cadagii baan soo qaaday faqadimtuhu waan u burburiyey waan ruugay bay tiri macnaha waan burburiyey intay kasoo jebiday qeyb yani wadayabtuhu waan u hagaajiyey marka dib yani la mariyey maahan ila caday lama mariyo catare waan u dhaqay weeye waan u hagaajiyey ha way u habaystay ha marka caday qof leeyahana in laga qaado karo ayay ku tusinaysaa tan kale sida nabigu macnaha calayhi salatu wasalaam isagoo xataa sakaraada ayuu cadagii maaragtay ku dadaalaya muhiimadiisa ad arkaysaa marka uma dafactuhu waan u dhiibay ila nabiy nabigaan u dhiibay sala allahu alayhi wasalam fastanaa waa ku cadayda bihi cadagii فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أركب بيتري رسولك استنى عضي استنانا عضييسي أحسن منه كفيعا فما عدام مجد بن أن فرغ إنه فارغي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي اسلام مركي أو كجد بابا رفع يده وقعنتي سكر تاجي أو اسمعوا أما فرتيسة ثم قال وحيري في الرفيق الأعلى اللهم ألحقني إله إهالي شي رفيق يسري 3 جاد في الرفيق الأعلى ثم قضي والله أوفصي عليه النبي عليه الصلاة والسلام مركا رفيق الأعلى أنا وكي صورة أي شاكتي آل أحاني النساء ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإياه وكان عائشة وحيا تقول مثل هذا مات النبي وكل انت عليه الصلاة والسلام بين حاقنتي كالحمتي إذا هي وذاقنتي لفقريت كيغا ama dhuuntayda iyo lafgareedkeeda ka dhexaysa intaa wey lafgareedku ma garkii inta u dhaxaysa saas ay ugu tiirisay macnihi way sakaraadinaysay macnihii marka nabiguna calayhi salatu wasalaam guryo badan buu lahaa markii xanuunka ku batay ayay u fasaxeen gabdhaha kale yidhahdeen caaisho gurigeeda muxuu ahaa ha joogo wa fii lafdin lafdi kalena wuxuu fara-aytuhu waan arkay yanduru isagoo eegaya ilayhi cabdiraxmaan nabigoo eegaya calayhi salatu wasalaam وعرفت وان قرت أنه نبي يحب إنه جعلي أسواك عدقة فقلت وحاني لبي تري آخذه لك مكوسو قال فأشاره وإشاري برأسي مدحي سأل نعم مدحه في معناه مهد كريم النبي عليه الصلاة والسلام وحال ساري تري حنونك لبني ولا سارو كلي ولا بقى تروا لها عليه الصلاة والسلام سي حديث العدين هذا لفظ البخاري كان هو لفظ البخاري والمسلم نحوه أي لها ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم لكن معناه انت وكد وراويا marka muslim uu wari naxwu ayuu yiri laakiin macnuhu inta waa ku dhow yahay macna ma الحديث 20 حديث كلاباتنات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحوي أتيت النبي قال أتقي صلى الله عليه وسلم هو النبي يستاك عضيانا بسواك عذر رد قيان قال وحوي أبو موسى
wadarafu istiwaaki cadaga darafkiisuna calaa lisaanihi carabkiisa dushiisa uu saaran yahay wuu yaquulu isagoo leh wastiwaaku cadaguna fiihi afkiisa dhexdiisa uu yahay kaanahu waxaadba moodaa yatahawacu inuu ismatajinayo buu alayhi salatu salaam abu muusa alashcari waxaa la yihi cabdullahi ibnu qays ibnu sulaym wuxuu ka yimid yaman maaragta mako ayuu yimid uu ku islaamay islaamka bilowgiisii wuxuu uga hijrooday xabasha ardulxabasha dadki u hijroodo ninka la yidhaahdo najaashi raggii aaday dumarna ay la socdeen kamid ahaa marka wuxuu ahaa nin aada iyo aada u qiimo badan wuxuu kaloo kamid ahaa markay dirireen mucaawiye iyo cali raggii cali matalayay markii safayn dagaalkii la oran jiray raggii qeybta ka socday cali markii la wada hadlayay marka wuxuu dhintay 44 baa la yiraahdaa hijriyadu markay ahayd khilaafna ku jira وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحول أتيت النبي أن أؤمن صلى الله عليه وسلم وهو النبي يستاك عضيانا بسواك عضي رد قيان قال وحول وضرف استواكي عضي درف كيسنا على اللسان عرب كدوشي سأساري وهو النبي يقول والحال هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوليه أولي وسلا تقام مركز عضي أسكف فقاته وبالغمين وكالي نغنيسا واستواك عضي فيه أفكيس الحديث الكترب كأنه واحد بمه دابوه النبي عليه الصلاة والسلام يتهوع إنه اسمه تجري مركب عليكم تصنع يعني عرف كان محدث كانوا كسي مهم سيء الكاهن على كجذب تمام جذا أولاد عدو ويان مركب هالكاس أيان إن شاء الله عاو كسر كوبينا وكوجابينا باب المسح أيان وصل الصعود على الخفين مركب بارك الله فيكم ساسي نوع هانيسا إن شاء الله تعالى